ma ku soo gaartay sheekada cajiibka ah ee wadan lagu dhuftay laba bam oo nuclear ah dhulkana lagu daray balse maanta dunida ka galay kaalinta koowaad dhinaca waxbarashada dhinaca horumarka dhinaca wax soo saarka أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. السلام عليكم وأتكم حسن تاي داوشة فيديوغان كسو دوو شيكو iyo fikrad magacii waa iibisu sakiin sheekooyinka guusha aynu ka sheekayno waa laba qaybood qayb ku saabsan guusha qofka sidoo qofka uu ku horumari lahaa sidoo qofka uu ku gaari lahaa meel aad u sareysa qayb kalena waxay ku saabsan yihiin guusha iyo horumarka ummad oo dhan wadan oo dhan sheekadeena maanta waxay tusaale aad u wanaagsan u tahay wadan kasta oo la kulma dhibaato balse aan dhibaatadaasi la fadhiisanin ee dhibaatadaasi u bedela faa'iidooyin wadankan dhibaatada uu la kulmay ma ahayn dhibaato caadi ah ma jiro wadan la kulmay dhibaatada wadankan uu la kulmay balse wuxuu uga baxay dhibaatadaasi si cajiib ah adduunka oo dhanna wuu la yaabay kadib markii ay ka soo kabsadeen dhibaatadan ba'an ee ku habsatay haddaba videogan waxaan u hadiyeynayaa qof kasta aniga oo kale ah qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo dhiig leh qof kasta oo doonaya inuu wadankiisa horumaro inay Soomaaliya gaarto meel aad u sareysa wadankan aynu maanta ka sheekayn doono wuxuu noo yahay anaga oo dhan tusaale aad u wanaagsan si aynu uga baxano qabiilka si aynu uga baxano inaynu u dagaalano dhul iyo inaynu hadda ku dagaalano si aynu adduunka ula tartanno haddaba maxay tahay sheekadan cajiibka ah sheekadan waxay tahay 1945 bishii 8 taariikhdu markay ahayd 6 wadanka aynu ka sheekayn doono wuxuu la kulmay dhibaato aad u ba'an waxay ku waabariisteen ayaga oo lagu dhuftay bam nuclear ah magaalada Hiroshima ayuu ku dhacay bamkaasi magaaladii oo dhan intii ku nooleed wax walbana hal mar ayuu dhulka ku daray maalmo yar kadib bam kale oo nuclear ah ayaa haddana lagu tuuray magaalo kale oo lagu magacaabo Nagasaki haddana magaaladii wuxuu ka dhigay iyadana dambas dhulka ayuu ku daray iyo intii deganaa wadankan wadanka Japan markii ay ku dhacday dhibaatadan ay Mareykanka ku tuureen labadan qumbaladood labadan bam ee nuclearka ah ma isdhiibeen ma fadhiisteen may waxay go'aan ku gaareen inay ka kacaan inay dib uga soo kacaan dhibaatadan ku dhacday dhibaatadan caadiga ahayn ay ku habsatay inay u bedelaan faa'iidooyin inay adduunka tusiyaan inaanan jirin dhibaato aan laga kici karin haddaba maxay tahay sababta ay Japan ku horumartay oo caalamka maanta ay ka gashay kaalinta koowaad maxaa ka dhigay kadib markii aan fiiriyay run ahaantii sheekadan cajiibka ah waxaan ogaaday arrimo dhowr ah inay sabab u tahay kow waxbarasho Japan markii arrintan ku dhacday waxay diiradda saareen waxbarashada qaybaheeda saddexda ah waxbarashada waxay ka kooban tahay madraso wax lagu barto macallimiin iyo arday haddaba saddexdan meelood ayay xoogga saareen si ay u horumaraan waxay ogaadeen wadan si uu u horumaro inay tahay inay waxbarashada iska dhisaan inay waxbarashada ku bixiyaan wax walba oo qaali oo ay haystaan wax walba ay awoodaan sadarteeda madrasada waxay ka dhigeen madrasooyin deegaan bi'ad ardayda soo dhaweynaysa ardayda wax soo saar u leh meel degan oo nadaafad leh wax walba nidaamsan ayay ka dhigeen macalinka dalka Japan
wuxuu qaataa mushaarka ugu badan ma jiro qof asaga la mid ah dowladda Japan waxay ballan ku martay in macalinka ay ka dhigto mushaarkiisa mushaarka ugu qaalisan sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay marka macalinka uusan u baahanin wax kale uusan ka raadinin meel kale dakhli markaasi wuxuu bixinayaa wax kasta oo awoodiis oo dhan ayuu siinayaa aqoontiisa oo dhan wuxuu siinayaa ardayga balse marka macalinka la siiyo wax yar qarash yar la siiyo mushaar yar loo gacanta loo geliyo oo aan ku filnayn wax isku dayayaa meelo kale uu wax ka raadsado saa darteeda ma bixinayo awoodiis wuxuu walba uu garanayay ma bixinayo waxa ku qasban inuu cunto wax kala raadsado dakhli kala raadsado ayaa ku qasbanaanaysa saa darteeda arrintaas oo dhanba way ka kaafisay dowladda Japan macalinka wuxuu qaataa salariga ugu qaalisan sidoo kale caafimaadkiisa dhinac walba dowladda ayaa ka kaafisay oo kaga filan soo ma jeedid macalinka wuxuu soo saaraa jiil wadanka dhisaya wadanka horumarinaya macalinka saas markuu yahay ardayga ayaa ku soo haray ardayga iskuulka bilowga marxaladaha koowaad ee ardayga ay bilowga yihiin ma jiraan waxa la yiraahdo baasid iyo dhicid may ardayga waxaa la baraa oo kaliya qiyam waxaa la baraa akhlaaqda waxaa la baraa nadaafada waxaa la baraa siduu nafsadiisa ugu kalsoonaan lahaa siduu wax u soo saari lahaa bani aadan ayay ku dhisaan marxaladooyinka koowaad waana meesha ugu adag waa meesha uu ka soo bilowdo ubadka dhisitaankiisa ubadkan waa hadhow asaga midka wadanka hogaaminaya haddaba ma jiraan marxaladaha koowaad waxa la yiraahdo imtixaan lagu baasayo lagu dhacayo waa la dhisaa bis marxaladaas waxaa loogu talagalay in la dhiso fikriyan aqliyan aqoon wax walba loo dhiso ardayga sidoo kale hadhow marxaladaha kale markuu uu gaarana ma jiraan waxa la yiraahdo buug inta saan loo xifdinayo oo la xifdisiinayo ardayga maskaxda loogu shubayo hadhow marka imtixaanka la gaarana wuxuu xifdisanaa uu meesha ku shubayo ma jiraan waxaas wax walba oo loo dhigayo ardayga waxaa loogu dhigaa camali waxaa loogu dhigaa ficiliyan waxaa la tusaa wixii oo camal oo la sameynayo wixii sameeyaa leeyahay lama xifdisiyo oo kaliya balse waxaa la baraa sidii waxa uu fahamay siduu uu ficiliyan u sameyn lahaa ayaa la baraa ardayga soo jeedid doonaysaa inaynu wadankeena horumarino waa inaynu tallaabooyinkan u raacnaa sida ay yihiin markaynu tallaabooyinkan ku dabaqno wadankeena waxaynu gaaranaa meel sare adduunka dhan ayuu la tartamaynaa haddaba ardayga waa sidaas qaabkaas ayaa wax loo baraa sidoo kale waxaa lagu booriyaa ardayga oo lagu gubaabiyaa inuu wax soo saaro fikirkiisa cabiro inuusan la cabsanin fikradaha ka guuxaya gudihiisa ardayga waxaa la siiyaa deegaankaasi uu ku cabiri karo fikradihiisa iyo waxyaabaha ku duugan mawhibooyinkiisa inuu banaanka u soo saaro haddaba qaabkan ay waxbarashada diiradda u saartay wadanka Japan midda kale waxay tahay diiradda saartay wax akhris meel walba ah ma ahan oo kaliya dadka wax akhriya dadka wax baranaya ardayda oo kaliya may wadanka Japan meel walba ayaad wax ku akhrisan kartaa maxaa yeelay meel walba maktabad ayaa ku taala oo aad buugaag ka akhrisan kartid tareenka maktabad ayaa ku taala baska maktabad ayaa ku taala maqaayadaha taa la fadhiis maktabad ayaa ku taala buugaag aad ka akhrisan kartid meel walba wax akhris meel walba ayay sameysay oo u sameysay dadka shacabka wadankaasi ku nool wax akhriska wuxuu kobciyaa maskaxda qofka markuu wax akhriyo intiiba uu maskaxdiisa ay noqoto mid si ballaaran intiiba fikirkiisa uu ka duwanaado dadka caadiga ah wax akhris meel walba ah midda kale waxay tahay ilaalinta waqtiga wadanka Japan ma jiraan wax la yiraahdo waxaan ku imaanayaa 9 saac kadibna waxaan ku imaanayaa 12 saac ma jiraan waxaas goorma balansanahay waxaan ku imaanayaa goorma ay balaminaysaa waxa iska dhacdo waxa iska dhigi karta 9 saac 10 saac iska dhac ma jiraan waxaas waqti hadaa ay qabatay isla waqtiga ayaan ku sugayaa waqtigu waa qaali saa darteeda wadanka Japan ma jiraan waxa la yiraahdo waqti laga soo dadahay qof la sugayo may waqti ay qabatid ayaan kugu imaanay hadaa imaan wayso waan ka dhaqaaqay danteeda kale ayaan raadsanayaa waa sidaas qiimaha waqtiga ayay muujiyaan waqtiga wuxuu ka yahay agtooda wax qaali ah waana midaas waqtiga diinteena sidaas ayay nabartay sidaas ayay noo sheegtay inuu waqtigu agteena uu ka yahay wax qaali ah balse anaga muslimiinta ahaa wadanka Japan ama dadka Japan waxay qaateen wax walba oo diinteeni ah
ayay ficiliyan u sameeyeen halka anaga aynu xifdisannahay oo keliya balse aynaan samaynin. midda kale ay ku horumareen waddanka Japan uu ku horumaray waxay tahay shakhsiyadda qofka Japaanka aad ay muhiim u tahay. waddanka Japan ma ahan mid loogu talagalay in wax lagu beerto, sidoo kale waxaa jirta qaybo badan oo aan lagu noolaan karin, balse shakhsiyadda qofka Japaanka ay waxay ka dhigtay in waxaas oo dhan ay ka adkaadaan. waxay suurtageliyeen inay wax ku beeraan oo ku noolaadaan. shakhsiyadda qofka Japaanka waxay tahay adkaysi, howl adag, karti, wax soo saar iyo nidaam. shakhsiyadda qofka Japaanka waxay ka qayb qaadatay in burburkaasi dhaawacaasi aadka u weyn ee labada bam ee nuclearka marka lagu dhuftay kadib inay kasoo kacaan, inay aftiinka u soo baxaan. ma aha inay soo kacaan oo kaliya, balse inay adduunka ka galaan kaalinta koowaad dhinac walba. wax soo saarka fiiri, wax walba waxyaabaha la soo saaro ugu qaalisan yaa sameeya waa waddanka Japan. shakhsiyadda qofka Japaanka ee ku dhisan karti, adeeg, dulqaad badan, samir, wax soo saar, nidaam waxay u suurtagelisay inay waxyaabihii hataa dabiiciga ahaa inay ka adkaadaan. dooga iyo quruxda dalka Japan waa aragtay hadda. arrimahan oo dhan waxay ka qayb qaateen horumarka dalka Japan. annagana sidoo kale haddaynu arrimahan samayno oo aynu dhisno shakhsiyadda qofka Soomaaliga ahi, aynu ku abaabino ku korino dulqaad, adkaysi, wax soo saar, dadaal badan, ficil badan, madrasooyinkeena aynu ka dhigno kuwo aan ahayn kuwo wax lagu xifdisiyo ardayga oo kaliya, balse lagu baro in wax walba uu barto uu camaliyan u sameeyo, ficiliyan u sameeyo. kadibna waqtiga aynu ka dhigno midka ugu qaalisan nolosheena. markaas waddankeena waxaynu gaarsiinaynaa inuu la tartamo adduunka oo dhan. hadda kaale aynu dul istaagno fikradda sheekada. hadda waxaynu soo gaarnay qaybta fikradda sheekada. haddaba maxay tahay fikrada aynu kala soo baxayno sheekadan cajiibka ah? waxaynu kala soo baxaynaa kow, ma jirto dhibaato aan laga soo kici karin. dhibaato walba oo ummad ay ku dhacdo, ummaddaasi haddii ay hal meel uga soo wada jeestaan waxaa hubaala inay gaarayaan meel sare oona dhibaatadaasi u bedelayaan faa'iidooyin. haddaba waddanka Japan waxayna bareen waxa la yiraahdo wada shaqayn. waa dad ku dhisan wada shaqayn. wax walba oo sameynaya waxay u wada sameynayaan si wada shaqayna. waxa la yiri qofka Japaanka ah haddii kaligiisa aad wax u dhiibtid oo aad ku dhahday waxaan sameyn ma sameyn karo, halka anaga kelinimo aynu ku sameyn karno wax soo saar oo fikrado muhiim aynu keeni karno. balse qofka Japaanka kaligiisa wax ma sameyn karo, balse haddii aad saddex Japaana aad meel u dhiibtood ku dhahday waxa sameeya, waxay sameynayaan waxyaabo aan caadi ahayn. waayo waxaa lagu soo tababaray markay yaraayeenba inay si wada jir ah wax u qabtaan. balse anaga waxaan la baray qof kasta kaligiisa inuu wax qabto. anaga saddex qof haddaad meel isugu keentid oo aad ku dhahday waxa sameeya, daqiiqad kadib waan isdagaalayna anaga dhexdeena. ma heshiinayno soo ma ahan. balse ayaga wax walba ay sameynayaan waxay ku sameyn karaan, fikradahoodu waxay ku soo saari karaan marka ay isku xiran yihiin, marka ay wada jir yihiin. 3 iyo 4 markay wax ku qabanayaan ma jiro qof la tartami kara, balse hal markaad meel u dhiibtid waad ka badan kartaa. hadda soo ma jeedid. haddaba waa inaynu wax walba aynu sameynayno aynu ku wada sameyno si wada jir ah oona dhibaatada aynu ku jirno uga soo wada jeesano si wada jir ah. markaas ayaynu ka bixi karnaa dhibaatada aynu ku jirno. markaas ayaynu waddankeenana gaarsiin karnaa meel aad u sareysa. mida labaad, waxbarasho joogto ah. waddanka Japan waxay markii horeba diiradda saareen waxbarashada si ay uga kacaan dhibaatadan ku habsatay. waxay ogaayeen inay tahay inay waxbarashada meel sare ka gaaraan. sidaa darteeda waxay ihtimaamkooda, hadafkooda oo dhan ay ka dhigeen waxbarashada qaybaheeda oo dhan. madarasada inay noqoto meel ardayga ku boorinaysa inuu banaanka u soo saaro muhibooyinkiisa. macallimiinta waxay u qoreen mushaarka ugu sareeya ee uu qaato qof shaqaale ah. ardayda waxay markii horeba ku abaabiyeen oo ay bareen akhlaaqda. waxaa jirta maado lagu qaato iskuulada Japaanka, waxaa lagu magacaabaa maadada akhlaaqda. waxaa la baraa ardayga markuu uu yar yahayba
akhlaaqda, waxaa la baraa qiyamka, waxaa la baraa nadaafada, waxaa la baraa waqti ilaalinta, nidaamka, waxyaabahaas oo dhan ayaa la baraa. soo ma jeedid waxay dhisaan marka horeba insaanka Jabaanka qofka bani aadamka Jabaanka ah wax akhris meel walba ah. soo ma jeedid wax akhris meel walba ah, buuga inaad meel walba ku akhrisid, inaad maxadda kasta boosteeji kasta oo aad joogto inaad wax akhrisid, tareenka, baska, meel walba inaad wax ku akhrisid. marka wadanka uu sidaas uu noqdo oo uu booskaasi gaarsiiyo waxbarashada, wadankaasi wuxuu adduunka ka gelayaa meesha ugu sareysa. mida saddexaad caafimaadka qofka aad ay muhiim u tahay inaynu ogaano in qofka Jabaanka ahi uu aad ugu dadaalo sixadiisa, caafimaadkiisa. sadarteed waxaa arkaysaa qof weyn oo Jabaana balse weli shaab ah, weli ordaya, weli hawlihiisa qabsanaya. maxaa u sababa? waxaa u sababa markuu yaraaba waxaa la soo baray inuu caafimaadkiisa ilaaliyo, inuu cuno cunto caafimaad u leh, cunto jirkiisa aan wax dhibaato u keenaynin. sidaas darteed annagana haddii aynu doonayno in dadkeena ay ahaadaan kuwa shaab ah hataa marka ay duqoobaan, waxaa laazim nagu ah inaynu ka fikirno oo aynu ilaalino caafimaadkeena, ka fikirno waxaynu cunayno, ka fikirno riyaadada inaynu samayno, aynu mar walba jimicsi samayno, mar walba orodno, mar walba ku dadaalno siduu jirkeena u dhisnaan lahaa. intaan oo dhan ayaynu ka baranaynaa sheekadan cajiibka ah, sheekadan khaaska ah maanta ee aan ugu talagalay qof kasta oo Soomaali ah. iga gaarsii qof kasta oo aad garanaysid, ma jirto ummad ku dhacda dhibaato oo dhibaatadaasi uga baxda ayadoo aan ummadaasi isku duumin oona dhibaatadaasi hal meel uga soo wada jeesanin. soo ma aadan arag ummadda Jabaan siday dhibaatada uga baxeen? waxay uga baxeen kadib markii ay hal dhinac uga soo wada jeesteen dhibaatadii ku dhacday. sidaas ayna ku awoodeen inay maanta dunida ka galaan kaalinta koowaad. hadda waxaynu soo gaarnay qaybta su'aal iyo laylis. su-aashu waxay tahay, maxay tahay fikradda aad ka baratay sheekadeena maanta? fikraddaas oo aad aaminsan tahay haddii aynu nafsadeena ku dabaqno inaynu awoodi karno inaynu wadankeena ka dhigno mid la tartama dunida kale. laylisku wuxuu yahay qor 3 fikradood oo aad aaminsan tahay inaynu wadankeena ku horumarin karno. haddaba tan iyo inta aynu kaga kulmi doono sheekada iyo fikradda soo socota, waxaan ku leeyahay mar walba ku noolow nolol farxad leh, nolol jacayl leh, dhigna magacaaga. aad ayaad u mahadsan tahay. فأكون بالقيم العظيمة. ma ku soo gaartay sheekada cajiibka ah ee gabar ku soo kortay saboolnimo, faqri midka ugu hooseeya, kadibna guursatay? kadib markii ay guursatayna ninkeedii ka tegay oona uga tegay gabar oo noqotay single mother. kadibna maxaa dhacay? kadib waxay noqotay qoraaga ugu caansan uguna qanisan dunida oo dhan. haddaba waa tuma qoftaan cajiibka ah, maxayna tahay sheekadeeda guusha? وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلاله. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى.